Tunisia waa wadan ay ku nool yihiin 12.26 milyan. Juqraafi ahaan wuxuu ku yaalaa waqooyiga qaaradda Afrika. Magaalo madaxdiisuna waa Tunis. Jihooyinka bariga waqooyigaba waxaa xiga badda Mediterranean-ka. Dhinaca galbeed wuxuu xuduud kala wadaagaa wadanka Algeria, waqooyi galbeedna wadanka Liibiya. Dalkan wuxuu ku fadhiyaa dhul baaxad ahaan cabirkiisu gaarayo wax ka badan 160,000. Dhulka dalkan waxaa laga helaa qaas ahaan magaalada Saqaafish, beerta ugu weyn caalamka oo uu ka baxo geedka saliid saytuunka. Dalkan waxaa dhacda magaalo qadiimi ah oo lagu magacaabo Al-Kirawan. Waa magaalo kaalin weyn kaga jirta taariikhda Islaamka, waxayna sidoo kale kaalin weyn ku lahayd furashadii Islaamka sida furashadii Algeria iyo Morocco. Sidoo kale waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyay ee ka aasaasma waqooyiga Afrika. Dhanka kale, magaalada Qardaaj waxay ka mid tahay magaalooyinka qadiimka ah ay Tunis ku soo jiidato dalxiisayaasha, waxaana laga helaa dhigaalo qadiimi ah. Laakiin dadka booqda Tunis kama caajisaan in ay tagaan jasiiradda Jarbax oo lagu naanayso jasiiradda riyada. Tunisia waxaa laga helaa masraxa labaad ee ugu weyn caalamka, waxaana lagu magacaabaa El Sham, waxaana ka weyn oo keliya Colosseum-ka Roma. Waxaana la sheegay in Tunisia tahay dalkii ugu horreeyay ee Carbeed u adeegsada internetka, kolkaasina waxay ahayd 1991.